shirkadaha ay leeyihiin hantiilayaasha adduunku oo aynu Teslada Elon Musk ugu hormarin karno ayaa haatan si xooggan ugu hawlan in aaladaha artificial intelligence-ga loo yaqaano ama robotyadu galaan booska aadanaha ee shaqooyinka sidaasna ay shirkadahani uga maarmaan mushaharaadka xadbeelka ah ee ay dadka siiyaan dib u dhaca waqti iyo cududarrada shaqo ee dadka lagala kulmo waxay ku doodayaan inay aaladahani aadanaha siinayaan fursad nasasho oo ay hoos u dhigi karaan cadaadisyada shaqada iyo culaysyada dadku hawlaha kala kulmo ha yeeshee maalqabeennadani waxay dhab ahaan aaminsan yihiin in robotyada kombiyuutarada ku shaqeeya ka caqli badan yihiin aadanaha sidaasi daraaddeedna wax soo saarkooda dhaqaale kordhi doono cajiib ma wixii dadku sameeyey ayaa dadka laf ahaantoodii ka caqli badan tani waa su-aasha hortaal dadka ku hawlan horumarinta aragtidan maalqabeen Elon Musk oo haatan ah ninka labaad ee ugu hantida badan dunideenna balse loo badinayo sanadaha dhow inaysan jirin cid hiigsan doonta kaalintiisa hantiilanimo ayaa yiri The most important mistake I see smart people making is assuming that they're smart. They're not. Yeah. Well, computers actually are already much smarter than people on so many dimensions. khaladka ugu weyn ee aan arko waa in aadanuhu u maleeyo inay kombiyuutarka ka caqli badan yihiin kama caqli badna sababtoo ah goor horeba waxaynu ogaanay midaas in kombiyuutarisku ka caqli badan yihiin dadka in la yareeyo tirada kordhaysa ee aadanaha si hantida adduunka taaliya dadku isu leekaadaan waxaa horey ugu taliyay Bill Gateska mar ahaa ninka ugu hantida badan dunida laf ahaantiisu waxa uu taageeraa horumarinta aaladahan lala doonayo kaalintii dadku buuxin jiray tan laf ahaanteedana waxaa loo arkaa inay aragtidaas halka ku hayso ah in la daciifiyo wax soo saarka dadka si saboolnimadu u kobcdo midaasi oo ay u arkaan inay xadidi karto tirada dadka ee kordhaysa ha yeeshee waxa fikradahan guud ahaan ku khilaafay maalqabeennadan hantiilaha Chinese-ka ah ee iska leh shirkadda Alibaba Jack Ma oo isagu qaba inaysan adduunkan korkiisa online wax garaad ahaan buuxin kara booska dadka But it's human being. We invented the computer. innaga ayaa hindisnay kombiyuutarka sidee wixii aynu hindisnay inooga caqli badnaan karaa waa waxaan dhici karin ma jiro kombiyuutar ka caqli badan dadka waa macquul inuu mararka qaar ka hawl karsan yahay balse maya ma jiro aadane samayn kara aadane kale oo isaga ka caqli badan kaneeco ayayna samayn karin xitaa It's just a toy. Man cannot even make a mosquito. So we should have a confidence. Computer only have chips. Men have the heart. So I never in my life, especially last 2 years when people talk about AI, I say human being will be controlled by machines. I never think about that. I think it's impossible. Right? It's dood taagan ayaa ah horumar mise dib u dhac kee ayay aadanaha u soo kordhin doonaan artificial intelligence-gu isla weydiintaas ayaan laf ahaantiina idin hordhigayaa